booliiskii dalkanahay dambi baraanahay daljireegan banahay dadaal muujiyanahay dadka kow adeege nabadda dadeeye daabka wadkayo booliiskii dalkanahay dibadda iyo gudahaba hadba meesha la diro kuwa dafacaye degdeg u jawaabe lagu dirsadanahay ozil harakad haramad booliis ozil harakad haramad meeshaan waxaa u joognaa inaan difaaca dalka iyo diinta waxaa dhammaantiin iyo macal annaga nagala wada rabaa inaan badbaadino shacabka Soomaaliyeed ee maalin walba ku dhibaataysan magaalada waa aragtaan arday jaamacada iyo iskuul loo soo diray waalidkood soo diray ayaa meesha lagu laaya waxaan u baahannahay inaan dadkaas dhiigooda badbaadino annagoo dhammaantiin waxaa tihiin macal annaga waxaan nahay jaamacadiin qaar masar wata qaar iskuul ka soo qalin jibi waxaan halkan dareeska u soo gashanay waxa waaye inaan badbaadino ummadda Soomaaliyeed ee dhiigooda la banayst ma fahanteen kuwa wadaadi taliye garanay waanadaadi taliye kuwa wadaadi taliye garanay waanadaadi taliye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وأنا وناسن داود الكوسة دوادا ما أنتوا حنا بقى حرمت توبرنا تكسرون المجالات بشيء عاصمة الصومالية هذا وحنا كسرنا جوبت الدبريد كوحنا عملت عيسو جدود وأنا وربحنا كوسة عاصمة توبر رسمي إيقاطا إذا كبولس الصومالية سيجار كأوتوبر يا حرمات أنتوا حالوا توبرا إذا ما كتلسن بولس الصومالية سيجار كأوتوبر يا حرمات وحنا توبرا دلك عن ولا لا أنا مرة الجار loo fiiriyo dhanka ciidanka iyo dhanka dawladda Turkiga marka maanta halkan waxa ku sugan macallimiin Turkiga iyo macallimiin Soomaaliya waxaan idin soo gudbin doonaa xaaladaha dhabta ah ee ku sugan ciidanka booliska Soomaaliyeed sida gaarka tababarka Harmacad iyo halkan tababar ugu socdo ila socda anigu waxaan ahay Sida Cali Xasan Cali intaan idin soo gudbin doonaa insha Allah hadda waxa uu diidin waxay jiraan bishop sida uu taqaanay hadda waxa uu diidin safiin dadka ciidamada sida nagamuray dadka ciidamada sida degdeg 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 hawgu biireen hawgu biireen degdeg hawgu biireen hawgu biireen dobkee nagamuray dadka ciidamada sida nagamuray dadka ciidamada sida degdeg 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 hawgu biireen hawgu biireen degdeg hawgu biireen hawgu biireen ciidana dulyo hoos dacalada jooge
markay idiin dhammaato dib ku noqonaysaa ma jirto ciidanka haramcad ee gaarka ah ee takhasuska kulligiis halkaas sare ciidankii meelihii kale ku noqon jirteen kuma noqonaysaa maxaa yeele waxaa laydiin tababarayaba inaad tabaab wahaydaan isku meel joogtaan isku meel wax ka difaacaan waan garan karaa tababarkan inuu yahay tababar adag tababar muxuu ahaa loogu talagalay dad caafimaad qaba dhalinyara oo akhlaaqdoodu aad u wanaagsan tahay maxaa yeele wax walba u horeeya waa akhlaaqda shakhsiga qofku ilaahaysa yaqaan oo waalidkii yaqaan oo guri wanaagsan ka soo toosan oo xurmada dalka iyo dadka iyo madaxda uu garanaya waajib weyn ka taliya ahaan taliyaalkiisa jiray xero taranka oo lagu tababaro la dagaalanka bixisayadu dalka wakhtigaas ayaan bajirin in ka badan 8 sano ayaa marna macalinka ahaa madax ka ahaa dugsiga ka marka waa xirfad gaara oo anigu aan si gaara u jeclahay dabridkeeda VIP barkashinkeeda xarunta ministeeda soo jeedkeeda nafta yani fisikalka waa ka jeclahay tababarada kale iyo ciidamada kale waxaa halka jooga dowladdii waxay bartay oo dhan waxay halkaa u yimaadeen inay idinku hambaliyeeyaan in tababarkii qofka markuu tababarku dhammaado oo la galo wax shaqo galo oo ay dhammaato waa inuu niyada ka farxaa oo loo hambaliyeeyaa la yidhaahaa hawshii waa joogay si fiican mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baa u mahadcelinayaa kulliyadda madaxdeeda akadeemiyada muxuu ahaa turksom madaxdeeda macallimiintii waxay baraysay kuwii meelaha cunnada ukunta idiin hagaajinayay iyo dhammaan shaqaalaha turkisum ee nin qof walba ka qaatay qayb gaara inuu tababarkan noqdo mid successful ah ama lagu liibaano inuu noqdo ka soo qaadatay iyo gaar ahaan insha isaguna markaa idinkacayn doona iyo meeshaa degi lahaydeen isaa u shaqayn lahaydeen idin baraayo waxaan halkaan u taagannahay difaac dalka iyo dadka iyo diinta waxaan mar walba diyaar u nahay inaan soo saarna ciidan tayo leh oo ay shacabkooda ku hurdaan mar walba waxaan ku dadaalnaa dibshiliinka iyo nidaamka ciidanka waxaa caawinaad naga siiyey walaalaheen Turkiya